ergo waa shay uu qof kasta oo Soomaali u garan karo weeye. ergo ha noo soo ergoogto hana naga ergoogto Allah yow qayeel mid loo ergoogto indhaha caalamkana arko ergo wixii loo dhiibay qaadaa wixii loo soo dhiibana waa soo qaadaa. kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa axad ay 27 tahay bisha 2 ee Febraayo sanadku waa 2022 ku soo dhawaada barnaamijka madadalada ergo oo nadiina akhriyo anigu ah Xuseen Yuusuf waxaadna toddobaadkan ku maqli doontaan dhirta qaare ee shiniidu surukadhaha ansatiya dhagax meela ab ku jira dhayalaagu uma helo dhibyaraanwi ilashana dhayalaagu mara waa fanaanka Yuusuf Birjaax oo ku soo caanbaxay silsiladii ay hablaha fooda isku dareen ee jacayl liiga ku dhex nool xubinta falanqaynta heesaha ayuu marti noogu yahay halkani waa Radio Ergo isha wararka arrimaha bini'aadanimada haddii aan ku bilaabo xubinta falanqaynta heesaha oo toddobaadkan uu marti noogu yahay Yuusuf Birjaax oo ah fanaan ku soo caanbaxay sanadkiina dhaafay 2022kii silsiladii caanbaxday ee jacayl liiga ku dhex nool taas oo ay fooda isku dareen hablo badan silsiladaas oo ahayd mid jacayl dhaqankana xoojinaysay ayuu Birjaax iga warramay ujeedada ay daarneed xilli aan ku wareystay qadka online-ka isagoo oo jooga magaalada Kampala ee dalka Uganda. Xuseen aad baan ku salaamayaa sidaad barnaamijka igu casuuntay adiga iyo bahda Radio Ergo dhamaantiin si kale laabaan idin salaamayaa marka xigta magacaygu oo saddexan waxa la yiraahdaa Yuusuf Weli Geele waxaan ku magac dheerahay Yuusuf Birjaax oo bulshadu ay taqaanaa. Birjaaxow waxaad inala wadaagtaa sida fankaaga uu ku bilowday. Fankaygu wuxuu ku bilowday horta markii hore anigu waxaan ku dhex jiray koox xafaneedyo hadba meeshii aan joogo ilaa oo markii dambe anigu aan codkayga aan bulshada maqashiyo marka fankaygu aniga saas ku bilowday. ma qoys faneed ba ka soo jeeda ma wax kaliya ku gaar ah adiga hobbigaaga ma jacaylkaaga ahaa bal arinta nala wadaag. maya aniga qoyskaygu qoys faneed ma aha aniguna fanka markii hore hobbigaygu wuxuu ahaa maansooyinka ama gabayada ama heeso ama dhaantooyin ha noqotee qaybaha gubaabada bulshada ee bulshada in la gubaabayo in khayraadkoodii iyo dalkoodii iyo nimcada iyo saliidda hodanka ee dalkooda ay ka faa'iideystaan waxyaabaha noocaas ah inay bulshadu gumaysi aqbalin waxyaabaha noocaas ah ayaan jeclaa oo iyo ummadnimada in loo fikiro. qaybta si gaar ah adigu aad fanka uga jirto aad ku xoogan tahay hadad nala wadaagto. fanku wuu iska qayb badan yahay gabayaabo buu leeyahay waxyaabo fara badan buu leeyahay heesa ayuu leeyahay laakiin anigu waxaan ahay hobal dhaantooyinka caan ku ah laakiin anigu hal abuur gabyaa oo wax curiye ma ii. waaye Yuusuf oo sanadkii la soo dhaafay waxaad aad uga dhex muuqanaysay silsilad hees ahayd oo magaceedu ahaa jacayl liig ku nool haddaad noo sharaxdo qisada iyo ujeedada silsilada. Xuseen marka hore waxaan salaamayaa dhammaan abwaaniintii iyo fanaaniintii ka qayb qaatay silsiladii jacayl liiga ku nool si gaar ah waxaan u salaamayaa abwaankayga Cabdiraxmaan Saciid oo isagu ahaa abwaankii curiyay maansooyinkii aan kaga qayb qaatay dhaantadii jacayl liiga ku nool. silsilada jacayl liiga ku nool waxay ku bilaabatay gabadh la yiraahdo Monabilan oo joogta magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya gabadhaas ayaa dhaanta jacayl ah oo aniga igu socota soo qaaday ilana wadaagtay oo tii dhaantadaas ayaan soo wadaa dhaantadii markay soo baxdayna wixii aniga markaa ila qumanaa baan kaga jawaabay. marka ma waxaad jilayseen bay ahayd mase waxay ahayd xiriir labadiina dhexdiina markaa wax ku saabsanaa. maya Xuseen oo xiriir jacayl ma jirin laakiin gabadhu waxay ugu tala gashay maaweelo bulsho dhaantadii qaabka ay u soo qaaday maaragtay jacaylka ahayd qayb ka bedelan baan ugu jawaabay oo anigu sidaa markii ila qumanayd ahay saasi ku bilaabatay. dhaantadaas horta waxay noqotay dhaantada ugu fuca weyn silsiladihii Soomaaliyeed ee soo maray sidaan filayo inta badan waxaa laga sameeyay 27 maanso ama dhaanto gabdho iyo wiilal fara badan bulshada qofba si ayuu u fasirtay laakiin qaybta dumarka maadaama anigu waxaan u jawaabayay gabadh ahayd dumarka ayaa maaragtay xamaasad fara badan dhaliyay oo qaar fara badan qaar soo aflagaadeynaya qaar fardhahaya maaragtay qaabba si fara badan ay uga jawaabayaan marka taas aniga maaragtay waxyaabo fara badan baan xagga dumarka kala kulmay kulli qaar guubaabiyayna waan arkay oo si fiican baad samaysay. qaybta aad ku lahayd ee dumarku ay kugu qoonsadeen ee sababtay in dumar badan ay kuu soo jawaabaan haddii aad nala wadaagto beyd ka mid ah. waxaan ka xasuustaa maansadii ugu horreysay oo kaga qayb qaatay
dhirta qaare ee shiniidu surukadhaha ansatiya dhagax maala ab ku jira dhayalagu uma helo dhibyaraanwi ilashana dhayalagu mara beydkaasoo kalaa ka mid ahaa oo dhaantadii ugu horreysay aan ka qayb qaatay inadeerdho oo haneeyaan wax kaada adhaxsheeda wixiyo oo jiradanka uma dhaay ikareehe culimaada adhibigu bawha ku dhigeen dhirta qaare ee shiniidu surkadhaha ansatiyo dhagax maala ab ku jira dhayalagu kuma helo dhibyarawi ilashana dhayalagu mara dhirta qaare ee shiniidu surkadhaha ansatiyo dhagax maala ab ku jira dhayalagu kuma helo dhibyarawi ilashana dhayalagu mara duulan eelaemaadudhaha ansataye dhowreeno oo cilada lagu siiye idhixiyo ha ku dhima hanmunahay dhexdaha isata duulan eelaemaadudhaha ansataye dhowreeno oo cilada lagu siiye idhixiyo ha ku dhima hanmunahay dhexdaha isata dadka lama adhibo dhabti ruuxa anku raabin loma soodha ashadeehe wajigoka adhinteeya dhaabanada ilmada ayay ku noqonarba fanaaniin iyo abwaamin fara badan baa kasoo jawaabay muqdisho laga soo jawaabay kismaayo jigjiga xuseeno waxaa kaloo kaga bedelay silsiladii hore silsilad shantii Soomaaliyeed ba dhalinyarada saameysay bay ahayd waxaa laga soo jawaabay waqooyi bari xeebaha Soomaaliya muqdisho kismaayo jigjiga intaba si isku mid ayaa looga soo jawaabay marka ka sokow inay sidaas ay ahayd oo jacayl ay ku saabsaneed arrin madadaalo loogu talagalana ay ahayd maxaa kale oo laga baran karaa ayaad isleedahay arrintaas fanku faa'iidooyin fara badan ayuu bulshada u leeyahay fankii oo la soo nooleeyay sidaad ogtahay bulshada Soomaalidu waxay u badatay qurba joog iyo dad iska magaali ah oo dhaqankii iyo erayadii naxwaha ay af Soomaaliga ka guuray marka dad fara badan bay baraarujin u tahay fankeena in la soo nooleeyo oo ummaddu waxeedii ay dhaqanka u lahayd inay ka tagin oo wadato astaan wanaagsan weeyaan baan anigu filayaa waayahay yuusufow bal in muddadii aad fanka ku jirtay ma jiraan heesahaaga qaar ka mid ah oo qiso dhaba salka ku haya ama adiga ka hadlaya ama abwaankii sameeyay ka hadlaya ama dad kaleba uu abwaanka uga hadlayo dabcan haa Xuseen waxaa jirta dhaanta jacayla oo nin asxaabtayda kamid ah oo gabadha xaaskiisa oo aad u jeclaa oo uu yiri hadii aan iraahdo waan ku jecelahay ama wax adduun iyo wax la mid ah gabadhii aan u keeno waxaas oo dhan kuma filla markaas sida darteed uu u baahday maanso inuu gabadhii ku raali geliyo wuxuu sameeyay marka maansadii baa loo sameeyay maansadii oo diyaarsan gabadhii oo ka warhaynin ayuu xaflad u qabtay xafladii baa deetana gabadhii si surprise looga daaray dhaantadii oo iyada ku socota oo maansadii oo diyaarsan ah maansadaas ayaa kamid ahayd oo qiso ahayd amin hore u taagaygayo xilligan aakhariyo haduunu biyaa ku sugan afmadoobe aduu kala lagu arag amin hore u taagaygayo xilligan aakhariyo haduunu biyaa ku sugan afmadoobe aduu kala lagu arag wax abuuran aynu aragnayo waxaan waali iimaan onisheenu qaban axad kula midana waali lamaaskuumi
وحيين قبل أحد كل ميدان ولله مسكوني أذيقاني سيبالي قليو مركيان أركب أورك وحانك وران أحدي والبابا يا أروس ليغا أريد أي ودناهك والحامان تحي آياتينكي نفتاي فنالاد كوار أريد أي ودناهك والحامان تحي آياتينكي نفتاي فنالاد كوار yuusuf birjeexow dhalinyaro badan ayaa maanta hoggaanka u haya fanka Soomaaliyeed bal talada ugu wanaagsan ee aad siin lahayd maxay tahay fanaaniintu horta kow inay anshaxa ilaaliyaan oo maansooyin ay soo bandhigaan dhaqankeeni ku wanaagsan oo maaragtay islaamnimada lafteeda iyo maaragtay aan waxyeelo dhaqanka islaamka suuban u geysanaynin isqaawinta oo kale inay iska daayaan sida qaldan ee loo labisanayo la iska daayo timaha oo kale la qorxiso oo si wanaagsan oo asluubaysan loo maaragtay loo jarto sida aan fanka lagu soo galo oo qofku isaga oo maaragtay akhlaaq xumo physically ayna ka muuqanin oo bulshadu ku dayan karto wax bulshada manfac u lana soo bandhigaya sidaas in fanka lagu wada ayaan aaminsanahay